muddo ka hor waxaa jiray gabadh la odhan jiray liili oo u dhalatay waddanka Chinaha. liili waxay iscalmadeen wiilkii waxa uu sheegay inay hooyadii keligii dhashay, qasabna ay tahay in xaaskiisa iyo hooyadii hal guri ku wada noolaadaan. liili codsigii waa ay aqbashay, sidaana waxa ay ku tagtay gurigii sodohdeed. liili wiilka guursaday wuxuu ahaa mid aad u shaqo badan, marmarka qaarna wuxuuba ku habeena dhixi jiray shaqada. maadaama oo liili iyo sodohdeed ay inta badan guriga wada joogaan, muddo yar gudaheed waxaa isbedelay dhammaan dabeecadihii sodohda. qaylo, cay, aflagaado, dhagahadal ayuunbay gabadh yarad u miistaa. liili hadal qalloocan uguma jawaabto, maadaama oo dhaqanka soo jireenka ee Jaynuhu uu dhigayo inaan sodohda lagu afcelin ee madaxa loo fororiyo. taasi waxay ku noqotay dhibaato hor leh. aad ayay u murugootay liili, maxaa yeelay maalin kasta in 10 jeer ka badan ayay dhagaheedu maqlaan hadal qalbigeeda dhaawacaya. murugada iyo daalka ka muuqda wejigeeda ayaa marmarka qaar ninkeedu ogaadaa, weydiiyaana waxa ku dhacay, balse waa ay ka gaabsataa inay u sheegto dhibkeeda. maalinba maalinta ka dambaysa, toddobaadba toddobaadka ka dambeeya, bilba bisha ka dambaysa, wuu ku sii bataa dhibku liili iyo cadaadiska kaga imanaya sodohda. sodohdu hadda warkii horeba soo dhaaf. waxay bilowday qacanka hadal iyo inay ku soo tuurto wixii ay qacanta ku hayso liili, dhaawacyo xunxun ay gaarsiiso. hadda liili dulqaadkii wuu ka dhammaaday. fikir dheerna kadib waxay go'aansatay inay disho sodohda, iyadoo weliba adeegsanaysa sun. liili waxay u tagtay nin lagu magacaabo haan oo ay aabaheed saaxiib ahaan jireen, iyana ilaa yaraanteedii uu ka dhaxeeyay xidhiidh waalidnimo oo qoto dheer. waxay uga warrantay xaalkeeda iyo dhibaatada ay ku hayso sodohdeed, waxayna ka codsatay inuu siiyo sun ay ku disho habarta, si uu bal mar uun dhibku u daayo, cimrigeeda inta ka dhimanna ay ugu noolaato farxad. master haan markuu arkay dhibaatada wejigeeda ka muuqata, wuxuu weydiiyey, miyay kaa go'an tahay inaad disho? waxay ugu warcelisay haa. wuxuu ku yidhi, waan kaa caawinayaa dilkeeda haddii waxaan ku idhaa ha sameeyo inaad samayso. waxay ku tidhi, wax kasta oo aad igu tidhaa ha samee waan samaynayaa, iyadoo aad mooddo inuu nabar ka foqay, wejigeedana ay farxadi ka muuqato. wuxuu yidhi, hagaag, wax yari sug. guriga ayuu ku laabtay. daqiiqada kadib wuxuu soo noqday isagoo qacanta ku sida bushqad ay ku jiraan caleemo geed. wuxuuna yidhi, waa tan suntii, qaad oo ugu dar sodohda cuntada. hal mar haddii aad ugu dartana hal mar bay dhimanaysaa, waana lagu ogaanaya inaad adigu dishay. balse wax yaroo far iyo sun leeg maalin kasta qadada ugu dar, si ay si tartiiba ugu bukooto, hadhowna u dhimato. talo kalena waan ku siinayaa, intaanay dhiman ka hor waa inaad dhammaan dabeecadahaaga beddeshaa oo aad noqotaa qof baariya. hadal xun hadday ku tirahdo waa inaad hadal wanaagsan ugu beddeshaa. cunto macaan waa inaad u karisaa, waa inaad u sheekaysaa, ka farxisaa, ka qoslisaa, waa inaad gogasha ka nadiifisaa, waa inaad habeenkii markay seexanayso u masaajaysaa, si aan lagaaga shakin geerideeda kadib. liili waxa u taalla shaqo adag. waxa ay bilowday furfurnaan iyo dabacsanaan caadi ahayn. sodohdu waxa ay la yaabtay sidan hagar la'aanta leh ay ugu adeegayso liili. sodohda lafteedii waxaa gashay naxariis, waxayna joojisay qayladii, caydii, aflagaadadii iyo weliba qacanka hadalkii. waa la isfahmay, waana la isu soo dhowaaday. inan iyo hooyadeed baa la noqday. muddo 2 bilood gudahooda, gurigii murugada iyo cadhadu ay ka soo toosi jireen wuxuu isu bedelay hooy farxadeed, ilaa la gaadhay heer ay sodohdu tidhaahdo, gabadhaydii ay seexo, anigaa shaqaynaye. liili oo iska faraxsan oo aan baryahanba cuntadii sun ku darin, ayaa hal mar indhaha qac ku siisay bushqadii ay ku jirtay suntu. durba dareenkeedii baa isbedelay. degdeg bay guriga uga baxday, waxayna u tagtay master haan iyadoo naxdini ka muuqato. waxay ku tidhi, adeerow, sodohday waanu heshiinay, waanan jeclahay, la'aanteedna ma noolaan karo. waxaan kaa doonaya inaad isiiso daawo aan kaga hortago suntii aan siiyey, si aanay iga dhiman. master haan oo dhoola cadaynaya ayaa weydiiyey, ma ku adkaysanaysaa inaad badbaadiso?
waxay ugu jawaabtay haa. wuxuu yidhi inantaydii wixii aan ku siiyey sun may ahayn ee waxay ahayd caleen iska caadiya oon beertayda ka soo gooyey. keliya waxaan doonayay inaad adugu kasbato sodohda. orod iminkana gurigaagii qabo oo farxadii igu noolow. haddaba su-aasha meesha taal waxay tahay yaa qaldanaa markii hore, ma liili mise sodohda mise wiilka guursadee? xaggay salaadu ka xidhmi lahayd? jawaabta commentiga igu soo qora. waa mahadsantiin.